kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa hal jimicsi haddii aad maalin kasta samayso maskaxdaada ku qasbaysa in ay kor u qaaddo hormoonada taranka. Haddii aad u malaynayso in jimicsigu yahay keliya muruq dhisid ama miisaan lumis, waxaad moog tahay sirta ugu weyn ee jimicsiga saxda. Wuxuu u shaqeeyaa sida software update oo kale. Waxa uu dib u habeen ku sameeyaa xiriirka maskaxda iyo habdhiska taranka. Haddaba qaybahan jimicsiga uu ka kooban yahay inta aanan isla eegin muuqaalkan, haddii aad imika uun nagu soo biirayso subscribe inoo saar, like garee muuqaalkan. Haddii aad horey noola joogtana like garee, asxaabtaadana la wadaag. Haddaba cilmi baarisyo caafimaad ayaa muujinaya in jimicsiga uu si dhab ah u saameyn karo hormoonada taranka sida testosteronka, estrogenka iyo horumarka maskaxda. Laakiin habkani waa uu ka duwan yahay fikradaha caadiga. Kororka testosteronka waa awoodda ragga. Jimicsiga xoogga ee resistance training iyo jimicsiyada high intensity-ga waxay kordhiyaan testosteronka si ku meel gaar ah, isla markaana kadib jimicsiga labadaba rag iyo dumarba. Taasi macnaheedu waa in hormoonkani uu si ku meel gaar ah u korayo kadib marka la sameeyo jimicsiyo culus ama dheelitiran. Haddii aan ku bilowno midda koobaad, the brain pelvic connection, xiriirka miskaha iyo maskaxda. Dhaqdhaqaaqa miskaha ma aha oo keliya muhiim uma aha galmada ama jamaaca, waxay furaan socodka dhiigga ee lafdhabarta ilaa maskaxda. Marka dhiigga uu si fiican ugu socdo agagaarka xubnaha taranka, waxaa kor u kaca hormoonada testosteronka ragga iyo estrogenka iyo progesteronka dumarka, kuwa oo iyaguna fura xarumaha fikirka fog ee maskaxda. Jimicsiga labaad waa super train squatka loo yaqaano. Waxa uu saameyn weyn jimicsigan uu ku leeyahay qaybaha kala duwan ee bulshada. Si aad lugo waaweyn u hesho, u samee si aad u hesho maskax cajiib ah. Lugaha ayaana leh muruqyada ugu waaweyn jirka. Marka ay shaqeeyaan, waxay jirka ku qasbaan in uu soo saaro hormoono dhalinyaranimo oo koraya. Haddaba sidee loo sameeyaa 20 jimicsi oo squat ah si tartiib ah subax kasta? Sameyntu waxay kordhisaa socodka dhiigga, meesha laga maamulo go'aan qaadashada iyo IQ-ga. Waxaa jira jimicsi la yiraahdo pelvic floor reset. Tani waa sifeeyaha awoodda taranka ee qarsoon. Dadka fadhiga badan waxay leeyihiin muruqyada miskaha oo daciif ah, taasi oo yareysa dareenka iyo awoodda joogteynta kulanka. Habka 5 ilbiriqsi adigoo fadhiya ama taagan, isku soo ururi muruqyada lugahaba, samee 5 ilbiriqsi kadib sii daa. Natiijada 2 toddobaad kadib waxaad dareemi doontaa kor u kaca dhanka dareenka iyo xasillooni maskaxeed oo ka timaada dheelitirka neerfaha. Haddaba jimicsiga wuxuu kiciyaa soo saarista nitric oxide xididada dhiigga, maadaama maadadani waa furaha dhabta ee adkaanta xubnaha taranka iyo xasuusta fog ee maskaxda. Xusuusnow, ma aha inaad saacado gym ku jirto. 10 daqiiqo oo joogta ayaa ka waxtar badan 20 saacadood toddobaadkii hal mar. Jirkaagu wuxuu jecel yahay signalka joogtada. Sidaa daradeed, jimicsiyadan waxay dhaqaatiirtu kula talinayaan dadka in ay joogteeyaan. Jimicsiga joogtada wuxuu hagaajin karaa dheelitirka hormoonada guud ee jirka, taasi oo faa'iido u leh taranka iyo maskaxda. Laakiin waxba ma jirto caddeyn xoog markaasi la eg oo sheegaysa si jimicsi gaar ah sida Kegel exercise oo kale uu si weyn u kordhinayo hormoonada taranka iyo qaybaha kale. Ma jiro warbixin amaba markaasi caddeyn buuxda ama markaasi natiijo dhab ah oo qofka uu arkay, inkastoo ay jiraan natiijooyin kala duwan. Sida jimicsiga uu saameeyo maskaxda iyo baruurta ciriiriga. Jimicsigu wuxuu kordhin karaa hormoon muhiim u ah kobaca unugyada maskaxda, xasuusta iyo fahamka. Waxay sidoo kale ku dardargelisaa soo saarista hormoonada kala duwan sida growth hormonka, kuwa oo dhammaantood door ka ciyaara caafimaadka maskaxda iyo taranka. Jimicsiga joogtada waxa uu ka caawinayaa hormoonada taranka iyo maskaxda. Jimicsiga isku dhafan ee compound exercise loo yaqaano squatska iyo deadliftska iyo push upka 3 jeer usbuucii, qofkii sameeya faa'iidooyinku waxay kordhiyeen testosteronka, growth hormonka si xoog badan. Jimicsiyo yaryar loo sameeyo waxay dhiirigeliyaan xoojinta muruqyada waaweyn ee jirka, taasi oo keenta koror hormoonada guud. Jimicsiyo kala duwanna waa ay jiraan oo iyaguna
markaasi la sheegaya inay faa'iido leeyihiin. Kegelka keligii ma kordhiyo testosteronka guud ee jirka sida caadiyan. Ilo cilmiyeed oo xirfadeed waxay faa'iido u leeyihiin xoojinta muruqyada miskaha, hagaajinta shaqada xubnaha taranka, wanaajinta xakameynta murqaha gudaha. Haddaba jimicsiga weyn sida squat-ka, orodka iyo jimicsiyada kale waa kuwa ugu xooga badan ee la xaqiijiyo inay saameyn ku yeeshaan hormoonada taranka, halka jimicsiyada yar ay leeyihiin faa'iidooyin caafimaad oo kala duwan laakiin aan u badnayn inay kordhiyaan hormoonada taranka. Talooyin caafimaad oo dhakhaatiirtu ay bixiyeen: jimicsi dhexdhexaad ugu yaraan 150 daqiiqo toddobaadkii si loo taageero dheelitirka hormoonada. Ku dar tababar aerobicska jadwalkaaga si loo kordhiyo testosteronka. Hurdada iyo nafaqada wanaagsan ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee jimicsiyada lagu dabaqayo. Jimicsiga ma aha oo keliya dhaqdhaqaaq jireed oo lagu gubo tamar, waa nidaam dabiici oo jirka u shaqeeya sidii dib u habeen guud. Marka qofka uu si joogto ah u dhaqaaqo, jirka iyo maskaxdu waxay helaan fariin cad oo sheegaysa in la kiciyo shaqooyinka muhiimka ee nolosha, gaar ahaan kuwa la xiriira hormoonada, neerfaha iyo wareegga dhiigga. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu weyn ee jimicsiga waa inuu kiciyaa soo saarista hormoono muhiim u ah caafimaadka guud, firfircoonida iyo awoodda taranka. Hormoonadan waxay ka qayb qaataan ilaalinta tamarta jirka, hagaajinta rabitaanka nolosha, xasilinta dareenka. Sidoo kale jimicsiga waxa uu yareeyaa hormoonada walbahaarka, taasi oo keenta degenaansho maskaxeed iyo hurdo fiican. Dhanka maskaxda, jimicsigu waxa uu kordhiyaa qulqulka dhiigga iyo oksijiinta markaasi maskaxda, taasi oo kor u qaada xusuusta, feejignaanta iyo awoodda go'aan qaadashada. Qofka jimicsiga sameeya wuxuu inta badan yeeshaa maskax degan, fikir furan iyo awood uu uga hortago niyad jab, walwal iyo daal joogto ah. Arrintan waxay muujinaysaa in jimicsiga uu yahay cunto maskaxeed oo aan laga maarmi karin. Natiijada kale ee muuqata waa hagaajinta caafimaadka guud ee jirka. Jimicsigu wuxuu ka shaqeeyaa oksijiinta, xoojinta murqaha, lafaha iyo wadnaha, wuxuuna hagaajiyaa wareegga dhiigga iyo shaqada xubnaha guud ee jirka. Jirka marka uu si joogto ah u shaqeeyo, wuxuu yeeshaa difaac dabiici oo ka hortaga cudurro badan oo daba dheer ah ama daba dheeraada. Dhinaca kale, jimicsi la'aantu waa khatar caafimaad oo si tartiib ah u burburisa jirka iyo maskaxda. Qofka aan dhaqdhaqaaq lahayn waxa uu nuglaadaa miisaan kordhin, daciifnimo muruqeed iyo hoos u dhac ku yimaada hormoonada muhiimka. Tani waxay keentaa daal joogto ah, rabitaan yari, hoos u dhac ku yimaada awoodda taranka. Jimicsi la'aanta sidoo kale waxay si toos ah ula xiriirtaa cudurrada halista sida sonkorowga, dhiig karka, wadne xanuunka, dhibaatooyinka lafaha. Maskax ahaan, qofka dhaqdhaqaaq la'aanta wuxuu la kulmi karaa walwal badan, fikir gaabis iyo hoos u dhac ku yimaada tayada nolosha. Gabagabada, jimicsigu waa tiir muhiim u ah nolol caafimaad qab ah. Ma aha arrin la sameeyo mararka qaar oo keliya, balse waa hab nololeed lagu ilaaliyo jir, maskax iyo mustaqbal caafimaad leh. Dhaqdhaqaaq joogto ah, xitaa mid yar, waxa uu ka qiimo badan yahay dhaqdhaqaaq la'aan buuxda. Jirka aad daryeesho maanta ayaa ah kan ku daryeeli doono berri.